baraarug news ee qaybta online-ka ama internet-ka oo aan ugu soo gudbinayno daawadayaal madaxweynihii cusub ee dhawaan la doortay ee xisbi xaakimkii markii hore talada hayay ee madaxweyne Silaanyana uu hore uga soo baxay jagada madaxweynenimada hase yeeshee gudoomiyihii xisbigaas oo loo doortay madaxweynaha 5 sano ee dambe hogaami doona jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Silaanya dabadii Muuse Biixi Cabdi balse daawadayaal sida dhawaan ka arkayseen markii uu guuleystay Muuse Biixi kulamadii uu la yeeshay qurba joog iyo dadkii qaybaha ololaha u qaabilsanaa xisbigiisaas kulmiye markii uu halka ka hadalay u jeediyay waxa uu sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa balse waxa uu hoosta ka xariiqay Muuse Biixi in loogu ololeynayay ama dadka had iyo jeer taageersanaa ee qaybta social media ku faafinayay taageeradiisa ay tilmaamayeen word ama hal kuligyo uu Muuse Biixi soo qaatay oo aad moodaysi inuu laftigiisu ka soo daalacday qaybta Facebook oo ahayd halku dhigaasi nin go'aan adag taageera hase yeeshee Muuse Biixi iyo taageerayaasha xisbiga iyo madaxda xisbiga kulmiye iyo murashaxan laftigiisa la doortay Muuse Biixi may sharaxin ama kamay bixin tusaale go'aan qaadashada adag ee Muuse Biixi uu leeyahay waxay tahay weeraha ay shacabka ku soo dhex tuureen taageerayaasha iyo kaadiriyiinta uu ololeeya xisbiga kulmiye murashaxiisii ku guuleystay doorashada Muuse Biixi Cabdi ayaa weedha ama astaanta ay ku tilmaamayeen in uu Muuse Biixi kaga wacan yahay murashaxiinta kale ee ahayd inuu yahay ruux go'aan iyo inuu yahay ruux go'aan adag balse daawadayaal arintaas oo u dhacaysay marka ay sidaa u jeedaan ama ay leeyihiin taageerayaasha inta badan ku taageera xisbiga kulmiye hab qabiil ayaa waxa ay muujinayaan oo ay tilmaamayaan marka ay ku doodayaan in uu Muuse Biixi yahay nin go'aan adag ama ay ku ololeeyeen dooro nin go'aan adag in uu murashaxiinta kale ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe ay leeyihiin iyagu go'aan ma laho balse arintan hadda ayaa marka ay sharaxayaan may tilmaameen ama wax sharaxada kama bixinayaan in waxa uu go'aan ku qaadashada adag uu Muuse Biixi ku yahay balse dadka wadhaas ku dhawaaqaya ayaa mararka qaarkood ee ay shacabku weydiiyaan arinta go'aan adeega uu Muuse Biixi leeyahay ee uu kaga wacan yahay Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe ayaa su'aashaas Muuse Biixi oo laftigiisuna arintaas social media gaar ahaan Facebook ayaa waxa uu kulamadii u dambeeyay ee uu la lahaa dadkii kaabeenka xisbiga iyo ololaha adag ugu soo jiray markii uu socotay loolanka iyo tartankii siyaasadda ee xilligii ololaha markii uu ku guuleystay ayaa qurba joogii ka yimid adduunka ee Yurub iyo America iyo meel kasto oo kamid ah dhulka qurbaha ee Soomaalida ku nooshahay ee u yimid xisbiga kulmiye in ay isgarab taagaan murashaxo Muuse Biixi Cabdi ee ku guuleystay doorashada ayaa mar uu toddobaadkan aynu ku jirnay uu Muuse Biixi la yeeshay doorato kulan uu ugu mahadnaqay qurba joogii sida weyn ugu soo la soo shaqeeyay xilligii ololaha ee guushana gaarsiiyay waxa uu sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa balse daawadayaal waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Muuse Biixi Cabdi ayaa isagoo wali lagu wareejin xilkii waxa uu wadada gurigiisa hormarta oo gurigiisa gasha oo ku yaala xaafada shacabka ee magaalada Hargeysa waxa uu durba yagleelay oo hawlgeliyay wada gasha gurigiisa oo isku xidha jidka weyn ee hormara madaxtooyada ee wadada halbowlaha oo ah caasimada Soomaaliland
balse waxaa la yaab leh Muuse Biixi Cabdi durba waxa uu ku kacay tallaabooyin muujinaya musuqmaasuqa Muuse Biixi ee uu isagu laftigiisa uu galayo taas oo uu durba caruurtiisa ka sareeyay caruurihii kale ee xaafadihiisa ama dariska allaha marka laga tago xaafadaha kala duwan ubadka ku nool ee magaalada Hargeysa isagoo oo wadadan uu Muuse Biixi gurigiisa ka soo bilaabay isla maanta ayaa durba waxa gurigiisa ay wadadan ku dhamaataa inta ay markay ka soo baxdana waxay ku dhamaataa jidka weyn ee hormara madaxtooyada taas oo uu sameeyay Muuse Biixi inay caruurtiisa iyo gaar ahaan qoyskiisa aan idhaahday ay maraan taasi waxay muujinaysaa Muuse Biixi durba in uu talaabadan ay fafaaladeedu u dhacayso ay tahay mid uu durba caruurtii xaafada uu ka sareysiyay caruurtiisa taas ayaa waxa muujinaysaa musuqmaasuqa Muuse Biixi inta badan lagu tilmaami jiray sidii marka ay dad badan ay sheegaan Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu beer weyn oo lahaa generaal ka tirsan dowladda Soomaaliya uu siiyay madaxweynihii Siyaad Barre markii dibana kamid ahaa saraakiishii Azlam sarkaalkaas oo magaciisa la yiraahdo Ismaan Caag ayaa waxa uu beertaas uu dowladda Soomaaliya siisay oo ku taala geedgeble ayaa waxa ka qaaday Muuse Biixi taas oo imka ay ka soo baxaan beerta Muuse Biixi ka haysto sarkaalkaas oo ugu awood sheegtay in uu u dhalal magaalada uu ka soo jeedo magaalada Burco Ismaaciil Daas ay tahay dhul Muuse ayaa Muuse Biixi ilaa iyo hadda waxa uu ku haystaa beertaas dhac taas iyaduna laftigeeda kamid ah musuqmaasuqa balse waxa la yaab leh Muuse Biixi markuu ka sheekeynayo arrimaha musuqmaasuqa ama uu leeyahay musuqmaasuqa ayaa la dagaalamaya waxa isaga laftigiisa ku maqan hanti uu ka haysto umad oo ay kamid tahay marwadii madaxweynihii hore ee dhintay Allah uu naxariistay igaal marwa kaltuun ayaa waxa uu ka haystay iyada laftigeeda dhul laakiinse Muuse Biixi maadaama uu isagu laftigiisu dhul uu ku haysto sharci darro iyo hanti umadeed sidee sharciga isagu ma qabtaa balse waxa la yaab leh inuu Muuse Biixi durba uu hantidii ummadda uu ku dhisanayo wada uu ugu talagalay in caruurtiisa iyo ooridiisa u maraan laakiinse madaxweynaha hadda uu kala wareegi doono xilka madaxweyne Siinaayo isagu waxan wada oo isagu laftigiisu dhistay ma jiro wax ay marwadiisu boobtay mooyee aamin waris laakiinse caruurta madaxweyne Siinaayo ayaa iyaguna ka sareen caruuraha markii horeba ay meel ku wada noolayaan ee qaaradda Yurub laakiin Muuse Biixi durba waxa uu caruurtii xaafadiisa ee la dariska ahayd uu durba ka kormariyay caruurtiisii laakiinse Muuse Biixi Cabdi ayaa tani waxay u tahay bilowga durba musuqmaasuqa iyo ifafaalada Muuse Biixi hore loogu yaqaanay ee durba uu isagii hormuud ka yahay Muuse Biixi ayaa lagu tilmaamaa shakhsi dad badan ka haysta hanti oo u badan dhul daawadayaal ba Muuse Biixi oo durba wadadii dhisanaya isagoo oo durba kursigii la wareegin wadada u leexata guriga madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan loo doortay madaxweynaha qaranka Soomaaliya waxaana si rasmi ah saaka loo bilaabay wadada si toos ah u tagtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha cusub waxayna wadadani noqonaysaa mid isku xidha laamiga gala madaxtooyada Soomaaliya iyo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa